السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام صحابة سهام عبد السود وهذا kusoo dhaweyneynaa waa kaa qaadna salaanta asxaabteyda aniga oo wakiil eh soo dhawow shukri janalkay kusoo dhawow kusoo dhaweyneynaa marti la jecel yahay baan dhihi marti la jecel yahay iska dheh waa dhownahay marti sii fog ma nihin marti waxaan ahaa albaabka taagneed oo idin laga furay maasha Allah wadana caaw maxaa idin wadnaa idin ma wadna arrin farxad leh idin ma wadna reaction ma wadno challenge waxa idin wadna arrin aan ka xumaano xanuunkeeda wadato gabar yariiso oo wixii lagu sameeyay saham maxaa lagu sameeyay gabar dheerta wallahi shukriye marka dhaw social media aka fariisatid oo aka hartid waxaan arkay ay sararsito iyo waxaan laga aamusan karin waxaan laga aamusan karin arkaya waxyaabaha social media looda maalin isla dhexmarayo wax inaba caadi ma ahan cunug yar oo aad u daayar oo maxaan ku dhahtay galmo xoog oo qasab inta lagu sameeyo hadana la duubay oo maaragtay wax aan inaba caadi ahayn lagu sameeyay maalin ilaahay keeno waa saban aakhir سائد والله مالي إلهي كان سوشيال ميديا وحكى دعاء كحنتهاي كحنون بدنتهاي كفال حنتهاي كصعدة markay mid sii socoto oo sharmaanta mid dhacdaba hadana maanta tii mid ka fool xun ay imaanayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay dadka ilmaha dhibaateynaya ama dadka dhibaateynaya ilaahay ha ka qabto oo ha naga qabto laakiin ani waxaan la yaabana shukriyay oo halka iga yaabsaa waxay tahay mudda gabdhaha la wacyi gelinaya gabdhaha Soomaaliyeed yar iyo weynba mudda la wacyi gelinaya loo sheegaya wax kaste ragga inuu bahal yahay inuu xaasid yahay inuu asxaan dhan lahayn ragga boqolkiiba 5 ka wanaagsan aan dhihi karaa boqolkiiba 5 ka wanaagsan wallahi ana waxaan dhihi karaa ragga boqolkiiba 5 nin aan xariis loo ka wanaagsan inta kala waraabe kala waxun yi waraabo waadi ana marka waxaan la yaabanahay oo aad iga dhaadhicila 24 saac wacyi gelinta gabdhaha Soomaaliyeed wacyi gelinaya sababta ay u qaadan laayihiin taas ay dhaadhicila waxay tahay sahamay waxay tahay ma taqaantaa wala wacyi geli gabdhaha inta badan way qaateen way la socdaan hadana waxay ka soo galay meel aadan ka filin qof aadan ka filinaynin dibkaas oo kaleeto ama qof walaalka ama qof ku dhow ama adoo si qaldan oo kale hada gabadhaan oo kaleeto waxa laga yaabaa in laga qabtay meel oo kii ah in laga qabto qofku inuu qof u dhow ahay dad anaga waxaan u haystaa hadii lagu wacyi gelinta waxaan u haysanaa qof kaaf iska ilaali qof ku dhow aad isku dhowdin ama guriga kula jooga ama saxaab kula ama qaraabatihiin ma ka filinaysid soo marka waxaan leeyahay dhibku halkaas uu ka socdaa ها ninka hadda waxa la taksiila waaya la dhahay waa nin dhan oo qofku markuu taksiila yahay qof bulshada shaqo weyn waaye qof laga shakinayo ma ahan aad waaye hadii laga shakinayo asagana lacag ma helayo wax raaca ma helayo maxaan ku dhahay tee waana la iska qaldamen laakiin taxi markii lagu yiraahdo waxa ku sawirmaayo qof bulshada u dhaqdhaqaaqayo u shaqeynaayo aad laga shakinayo waa qofkii kaliya oo bulshada samaanta iyo samafalka iyo dhibkaas oo kale aan laga filanaynin marka waxaan dhihi karaa gabadha sirta in kastoo iska yareedo hadda qof kastaba uu gaadi karo hadda qof wacyi gelin wax iskaarta aysan ahayn hadana waxaan dhihi karaa waxa gabadha sirta lagu qalday ninkaas taksiga isdhahday waxa laga inuu hore u taqaantay inay ninkaas taksilahaas oo kale inay ku qaldanto ama meel u raacday asagana oo baraayo noqdo oo san shaqadiisu ka ekaan cunugtan yarka oo damac ka galay inkaar Allah guriga ka soo inkaaran yahay abaaye laakiin ma la isdhihi karo in gabdhaha Soomaalida aad iyo aad aniga intaan ka arkay oo aan ka arkay aad iyo aad u gaari jecelin ma la isdhihi karo gaari nin gaari wata hadayba arkaanbo waa ilooba wixii ku dhici kara waa ilooba wixii marka way gaarigan bahala ku jira way hada bahal meel maray intay adigu istaajisaa dhexda ka gashay maxaa kaaga imaan karo horta wallahi horta been gabdhaha iyo afar tuug oo bahala ah gaarigan ku dhex jiro adna waxaan leeyahay abo lifti isii horay meel lablay ii gaarsi isii qaad meesha soo jaaniska asaga kawaran hada marka way wallahi horta abaayo way jirta gabdhaha soo aad bay horta u gaari jeceliyeen koodhe hadana ninka haduu gaari buuto oo shirka u fadhinin ikhyaar ah loo malay ma loo malay ciyaal suuq gaariga u jeed ma loo malay inuu nin غير مسؤول oo wato nin ikhyaar un baa laga filanaya meesha marka waxaan dhihi karaa gabdhaha saas ugu qaldamaan ha laakiin waxaan dhihi karaa wallahi aniga shaqsi ahaanteeda nimanka gaariyaasha wata waxa aan ka aaminsanahay nimanka gaariyaasha wata boqolkiiba 95 rag xun u badan yihiin ama gaari weyn ha wataan ama gaari yar ha wataan waxay u badan yihiin raqsa qajaamin oo gabdhaha faraxumeeyo oo gabdhaha dhibaateeyo u badan yihiin waxaan dhihi karaa gaariyaasha hadda la wada wato gabdhaha lagu gaadaabo haba loo wato badar ilaahay iyo wax u wato weeyirihiin Soomahan marka waayahay gabaray hadii marka waayahay kor lagu qayliyo oo hoos lagu qayliyo haddaad garoob tahay haddaad gabar tahay haddaad
hooyo tahay haddii ina baraarugayn oo adinka haweenka ina baraarugaynin haddana dhibka jiroo kale wuxuu aan arkay bilmatal hadda adi laba qof oo walaalaho is yaqaanaanahay dhibka adigu soo gaaro ani berri waan ku qoslaya maxay tahay waxaas maxaana dhakor bisad kaba isma dheero gabdhuhu waa isku mid haweenka waa isku mid haddaa maanta adiga dhib kugu dhacay aan ku qoslo ama aan ku farxo beri ana igu dhacaysa waayo ilaahay xaq ma mooga waa xaqaas adi aan kaa galaayo ana waa layga jaraayaa beri dadka waxaa la rabaa inay taas ku baraarugaana la rabaa qofka walaalkaaga markuu dhib ku dhaco ha ku qoslin ha u riyaaqin waayo waxaa la dhahay wixii maxaan ku dhahay dukad walaal ha qodina le haddaa qodana ha dheerayna la dhahay adi ku dhici doontidaana ma ogi marka ani waxaan dhihi lahaa gabdhaha dhib ku gaaro kusoo qoslaya ku farxaayo aday beri kugu dhici kartaa waxaan ogeen ubax fahmo gabadhii la dhahayo wax yar ka hor gabadh yarta ay la dhahayo magaceed muxuu ahaa gabadhi kaleta ii sheeg ooy wax yar ka hor ishaysteen sumayo ay ishaysteen ay dharka ka dhigtay ay cayday aflagaadaysay si xun ay u bahdishay wax yar ka bacdi ayada haddana dhibkii kusoo dhacay waa gabdhooda walaalaa isku meelay joogaan isku magaalay joogaan isku shaqo waaye maxaa u caynaysiin qof gabar dhib ku dhacay gabar inay ku farxda ma aha inay ka naxda ma ahan tan kaletan waxaaba laga yaabaaba gabdhaha la dhibaataynaayo gabdho kale in loo soo dirsado oo shir qoolaan way u badan tahay waa sida u badan wallahi billahi saas u badan tahay waayo waxaa laga yaabaa gabar fiican oo idab leh oo akhlaaq leh oo yar oo gurigooda laga soo bixin waayo gabar kale in loo soo dirsado oo gabdhaha soo bixi walaa horta abaayo sanadahan hadda la jooga maar waagi dumarka iska neex jireen oo dharka isku ahaayeen oo isku kii ahaayeen hadda lama joogo dhib iyo fidna laba qofood xaasisku dumar laba ka dhex bilabo hadda gabar wax ka naxaayo oo hooyadeed hayna ama aabaheed ma jiraan kuwa asal dhashay shirqoolabo waxaasayta waxna looga faa'iideysanaa nalagu dhibaataynaa taasaaba ka wada anaga isku duubnaa lahayn anaga maxaan ku dhahay aan iska jiri lahayn cadowga anaga maxaan ku dhahay aan hal meel kasoo jeesan lahayn cadowgu yaraan lahay laakiin dhibka waxa keenayo waa isku dhaca gabdhaha isku dhacsan yihiin gabdhaha isficilaayaan dhibaatada waray ani gabdhaha waxaa idin dhihi lahaa warnimanka gaarayaasha wata ka carara warnimanka guryahooda ugu tagaysiin ka carara warnimanka aad la saaxiibaysiin ka carara ani maxaa la yaabaa midda kaleeto waxaa lagu leeyahay gabadhan heblaaye ah wiil hebel bay saaxiib la tahay maxay saaxiibay ahaayeen lagu leeyahay kama filanaynin gabadhan iyo wiilkan kama filanaynin hawshan goormay gabar wiil saaxiibi jireen adduunka isbedela baa dadka hore waxaas ma jiraan waa gaari hadaa motorkiisa maqla ma aragto wadada waan ka carari jirnay haddana gaari marka la maqlaa wadada loo istaagaa xaawata iyo la socday xooyaha iyo liftina si aan dhahna iyo waxa waa adduunka abaa wuu isbedelay dadka waa la gadanaya dadka waa la xadaa waa la dilaya balaayo dhinac socda gaariga ka muraayadaha u dalacayihiin gabaray oo liftiga u istaajisanayso bahalkii ku cun lahaaya ku jira ka car ma jiraan waxaas mid kale nimanka guryahooda u raacaysiin oo intay ina balaslaan guryahooda u raacaysiin ka car biyuhu wax kuugu daraya hadhowna waan ku fuula filmaana wuu kaa duubanaya waad qarsanaysaa hadhowna waad qarsanaysaa waxaa leedahay hooyadii warkaa uma sheegi karo aabahay uma sheegi karo na marka horeba iska jir ninka haddaa shukaansanaysa haddaad la soconaysa gurigiina ugu yeero war anaga guri baan leenahay meela degan ah igu ima u dheh adduunka isbedel adduunkas ma jira abaa adduun guri la isku weeranayo boqolkiiba 95 naagaha maanta waxa gaaraya gabdhaha waxa gaaraayo ayaga iska leh ayaga iska leh ayagaana isku keena ayagaana ka mas'uul ya war hooyo kasta ha dhiifoonaata gabadheeda meeshii maraysa ha ogaato gabadheeda meeshii aadaysa ha ogaato cid ay saaxiib la tahay ha ogaato saacad meeshii gabadheeda ku maqan tahay hooyo kasta weynay tii aan hooyo lahayn ilaahaaba leeyahay farahayba way iska dayacantahay laakiin gabadhii hooyo u joogto oo yaroo hooyo gacanta ku hayso ha ogaato hooyada gabadheeda meeshii aadayso ya tii aan hooyo lahayn ilaahay baaba u maqanbo oo ilaahay baa u maqan wax lagu eedeynaya maba lahanbo oo maba la dhahay hooyaa fiirinayso laakiin horta wuxuu ilaahay toosiyaa tooso rabbi subxaana watacaala qofku toosiyo tooso wallaahi bilaahi hooyo wax ma toosiso hooyo wax ma toosiso laakiin still hooyo waarid waaye mas-uulna waaye marka ani waxaan dhihi lahaa 95% gabdhaha dhibka ku dhacaya ayagaa isku keeneen gabdhow dhibka inuu ku dhacay adinka isku keenteen iska jira nimanku waa bahalo iska jira hadda waxa socdana niman maba la dhihi karaba waa balaay gabdhaha loo soo diray waan qiirooday maxaan ku dhahay warkun waa kula tay walaa si haba qara taca
والله بالله واقعي ولا ضباي دبت أبا waxaa laga qeyrana wallahi بالله gabadha video laga duubaa rikata la isaga heystaa waxa la leeyahay dahabka hooyada keen hebelowga keen weligeed barikatada hooyada gabadha u ta familkeeda gabadha waxa fiira adim isku keenna bahdilkaas iyo dhibkaas la isku keenino hay maxaan ku dhahay war hooy gabdhow ilaahay ha laga cabsado war ilaahay ha laga cabsado gabdhow ilaahay ha idin ilaaliyo ilaahay dhibka jira geesa naga marsi intay ku dhacdan ilaahay ha u booganayo هذا فيديو wuxuu ku socday gabadhan yariista aan ka xanuunsanay caaw meeshan u soo fariistay darteed aad u yartaa abay aad u yartaa hadana sanad abay naagi waa weynay wax weeri waa ilma yar oo hadi karin masaakiin ah umba wal raadsan waya baad subhanallah ilaahan ka maga gala dhibtan awlaadnadana ilaahay ma ku bareeyay soo ka dhicin inta ay ku dhacdana ilaahay ha u boogadayo in dambana inaysa ilaahay ku dhicin ilaahay ka bareeyo aamin ilaahay intaas nooga ekaysiiyo maxamed waalidiintan waxaan dhihi lahaa hooyo iyo aabo special hooyo waxaan dhihi lahaa hooyooyinka ilmahooda ha ogaadeen hor ay foonaan saaxiibka gabadhaada ogow cidday saaxiib la tahay ogow meeshay aadayso ogow taleefanadeeda ogow hala dhifan cunug gabar yara taleefon loo gadaya wadada lagu siiyay maxaa laga sugayaa marka waxa laga sugayaa maxay tahay aad iyo aad shukr maxaa ku soo gabagabeynay wallahi abaaye wax kale ku soo gabagabeynayno la waa qiiroonay waxaan waaye hooyada gabadhaas dhashay ilaahay gabadheeda u boogadayo ninkaasna xaqa ilaahay ha tuso wadada waxaan rajeynayaa in la marsiyo doono cadaalad xaqa u leeyahay in la marsiyo doono rajeynaynaa insha Allah day wax kale oo dhahayna ma lahane qeyr caafimaad isku kuna saxaabay anaga gabdhaan dhalna ilaahay waxaan ka barinaa inuu gabdhaha noo asuro meel baa nabad xanuunaysa ilaahay gabdhaha noo xifdiyo inuu ilaahay gabdhaha maxaan noo wanaajiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu anagana gabdheena dib naga tusin cid dib ay ka qabaan ilaahay uu boodhayo oo caafiya ilaahay ka baryana qof damban ilaahay wallahi aniga gabar Soomaali ah ama hooyo ha ahaato ama garoob ha ahaato ama gabar ha ahaatee dib ku dhacay gabar Soomaali ma ku farxayaan wallahi ha ku farxayaan nolosheeda ma ku farxay farxad ma jirto laakiin waxa laga yaabaa dad maamadaas dhibkaas ku dhacay ama daris la ama aqaan farxayleeda isku keenta gabadha saana eheeda isku keenta waan sugaay waa qalaasi way jiraysaabo ha hooyo gabadheeda ceeb u quurta ma jirto hooyo gabadheeda sharaf dhac la rabtaa ma jirto hooyo gabadheeda inay meel xun aad rabtaa ma jirto laakiin qadarta way ka adag tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ku leenahay gabadhaas sirta ilaahay ha u boogadayo ninkaas inta gabadhaas saa u galana Allah soo qabto xaqha soo qabto ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo qabto wixii gabar dhibaateena dhib Allah ku rida ayagana ilaahay ha dhibo oo gabdhaha dhibaateeyo inta barnaamijka mid la mid ku kulmi doona asxaabteeda qaaliga waxaan idin leenahay bye bye qari caafimaad